laba dayax oo midna calool leh midna bidaarna lagu soo bandhigay dayaxay qaadan lahayd dayax oo bidaar leh dayax oo calool bidaarta iyo ku fikirtay ama mar ma kugu soo dhacday ama isaga maba tiriba fanka iska dhaaf والله ها يعني فنكرت وحواي إيش wax fiican ma fahanti sida hee caadiga qof kasta sax marka weli ma dhihin ka bax oo toos ma dhihin laakiin waa jeclaa inuu ilaahay ka midoobiyo iska dhaafo waayo waxayna sax asaka soo go'aanaa fiican oo asagu ku faraxsan inuu ka haraa fiican ma fahanti aad iyo aad aad marka iyo aad ilaaha la ugu baryo inuu ilaahay ka midoobiyo insha Allah maasha allah hadda sax wadankii uu burbur badan soo maray marka ma fan ma laga warqabi karo hadda ma hoo fan iyo in fanaan oo la oo ii sheeg dawlad ee kontarooshi iyo waxaas hadda waxaa isleeyahay xaaladeedu weli Soomaaliya ma gaarin hadda waa adag tahay ma fahanti صح si fiican aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad marka iyo dawladda hadda mas'uuliyadda kale oo saarana ka weyn fanka aad ma aragtay dalmaryaro ma aragtay weli aad iyo aad weli bidaartiis caadi nadiif ah oo arkay iyo ragga caloosha leh ee caloosha aad ku weyn leh buuburin ma aragtay sax si fiican iyo ragga bidaarta leh maanta haddii aan lacalab ahaan lahayd gabar madax bannaan oo aan hay marwo ahayn oo aan marwo hay ahayn sax laba dayaxa oo lagu soo bandhigay laba dayax dabcan dayax marka dabeecadiisa ka heshay laba dayax oo midna calool leh midna bidaarna lagu soo bandhigay dayaxay qaadan lahayd والله horta asoo bidaar leh waa arkay sababta waxa soo korsaara arkay ma fahanti marka dayax oo bidaar leh dayax oo calool bidaarta iiran bidaartaad door bidi lahayd ها تا bidaarta waa soo beeri karaa ma ogdo taasaa beenahayn laakiin calool dhibakeeday leedahay calool marmarka ها qaar hadduu xagaa soo jarko caloosheeda waa baraba ama bijiri kariba doonaad ama jim ma aadi karo doo idhaho kabaran lacalla uu diido midna ogow ninba ninka uu ka yani ka tima yar yahay uu ka romanticsan yahay ragga bidaarta aad bay romantic u yihiin maya maya makaa yeelin waa kaa huba waayo aragnimay tinta kaga biibtaa macnaha tiimkaada ma u hilinaysaa idirisoo bidaarada ayaa dhacday yaa ninba ninkuu ka tima dheer yahay haddaad aragto ninba ninkuu dhalinyarada ka food dheer yahay ma aragtay ha waayo arag ma ahan yani nin reer dhaqan kara ma ahan nin romantica ma ahan nin maskaxdiisu si fiican u shaqaynaysa ma ahan ninba ninkuu ka tin yar yahayna wuu ka garaad badan yahay waa kaa hubaataa ha macnaha hadda sheekada waxaaba ka dhigtay yani dhalinyarada dhan oo caadiga ah maba jiraanba ka camal yani waxaa shidanaa ka wadaa miyaad ka bidaarta le odayaasha ragga bidaarta le yani nolosha markii la yahay romanticnimada iyo caqliga iyo fikirka iyo inta badan ragga bidaarta baa la siiyaa والله علم عصب واي من جوان علمي كان ما فهمين ما يقول عصب ياي ما أنا آمن هذا كابان هاي هذا أركتني فوت در ولي جراد كيس مرة ما يسرنا فوت در هذا أركت جراد كيس مرة ما يسرنا اوكي مركه ما هي كلها دين لكن ما ضيحه كجري دك فوت دله ضيح هذا أركتني كنت ما قال نكاسا كواي أركسنا ما كروماتكس taas ma kaa yeelin waa mataqaanaa gacantas calaacash waxaad kasoo baxda waa taas kaama yeelin maya horta waa ku saxsan tahay maxaa yeelay qof kasta qofka uu jecel yahay ama markaa nolosha uu la qaybsado unbaa wuxuu u yahay qofka adduunyada ugu wanaagsan nin waliba miduu dumar caalamaday way cudboon tahay soo cawaalan uusan dhihin dumarkuna waa sidoo kale mar walbana gabadha xaajigeeda u wanaagsan gabar gabdhaha ma ogtahay ninaaba sabraba oo xoogo raganimada celisaaba gabar dulqaad ma bala gabar waxa waaye ninka sidee ka rabta dee ka helaynin maba rabtabo sax xataa gabdhaha ma qaataan yani runtaa fiican maho beemaa laisku sheegaa si fiican gabadha wax kasta ha u sabarta ha kuu sabarta laakiin sidee iyada rabta boqolkiiba boqol hadee kaa helin gabadhas beema fiican maba rabta gabdhaha dareenkooda iyo emotionalkooda maba qarsadaanbo okay hadda farxiyoy ma aanan guursa single baan ahay for example waa tusaale waaya hay magaalada muqdisho aan joogaa maadaama in adeertay aad tahay gabar ii dhow noloshaada inta badan waxyaaba badan baan daawaday inkastoo noloshaada privateka aanan aqoon u lahayn laakiin haddana inta publica markaa arkay aad bay u qurux badan tahay gabar baan ka helay magaalada muqdisho aan joogayaa gabar baan ka helay farxiyo gabadha maasha aad bay u qurux badan tahay waxaan rabaa qofta inaan isku qarxiyo
hay gabadhana yacni waa la qabaabaa lagaga haraa mooye waa lala socdaa lagagama hara weliga haddii 10 nin ay la socoto 11 lagu noqdaa ilaahay wuxuu laga yaaba in aad ku guulaysato laakiin gabadha haddii lagu yiraahdo waa la qabaa ka har marka gabadha waxaan ogahay inaan la qabin waxaan rabaa in isku qarxiyo oo ogahay maadaama ay gabar qurux badan tahayna muqdisho dhan in dhalinyaro badan ay markaa doonayaan gabadha inay xiriir la yeeshaan ama ay leeyihiin ila tali marka gabadhaa baan rabaa soo jiidasho inaan ku sameeyo maxaan sameeyaa labiskayga hadday noqoto dabeecadeyda hadday noqoto yacni maxaan bedelaa maxaad igula talinayd inaan sameeyo walaa idriso horta ani saa aaminsanahay waxay tahay yacni labis horta markii la dhaho horta waa daa nadaafad leedahay horta lambar 1 nadaafad nee lahaatid waaye af ila inaad tahay adin nin nadaafad badan hay ina nadaafad fiican lahaatid hay teeda kale wax kastoo aad samaysidne ama wax walba u samaysid gabar waxa waaye gabar yacni hadday kurawin ma ku rabto laazim qalbku waxaa fiican inuu asigu jeclaado ma fahamti si fiican qof aan asigu naagina jecleen inaysan rabin haa cid dhan kuma qasbi karto haa hadda si kastoo cirkii dhulka hadda u boodid wax walba aa samaysa hadeeba ayada kaa helin ama aysan ku jeclaanin waxa dabaalkii le u ahaanay dhibi jireed markii aa soo wacdahay dabaalkii ay soo wacooy arag le lagu leeyahay asxaabta ma fahamti okay marka dabaal nimadan seen kaga badbaadaa marka aan waxaa laga yaabaa anigoo dabaal xitaa inaan is yara geejiyo aan is yidhaahdo iska dhignaan dabaal ahayn dhaqan noocee ahba inta badan dumarka jecel inaad ku dhaqanto markaa nin raga tahay oo aad rabto inaad soo jiidasho ku samaysid والله قف بسيء جعش هاي سيد عادي أنا وحائل قرح بدن أنا يعني دمرني ذا مركا قياسو قف دقن نظافة بدن وما أردت هرت فضاد ننفض نقبلها ونعبين oo faraha ka soo horeeyaan يصير كستبو قبلها قد أنا أقول بحج عيش عموه نين كذا نكون فانتو نين دقن أو كارس كارك نقضه Mhm. إنا هات جيل دقن أفقابا لا maxaa waaye nadaafadiisa ay fiican tahay intaas duu wiilka lahaado horta gabadhiba caqli leh inta badan wiil waxaa lagu xishaa inuu ahaado wiil nadaafad leh wiil degan bas iyo qof diin leh ma fahanti maasha allah aad iyo aad marka intaas baa dooninka ka fiicnaado inta kaleetana dee caqligiisa iyo hadalkiisa intaasay u taalaa okay maasha allah nimanka naagaha badanna oo turftooryaasha naagaha adduunka u nicbiin mogtahay teeda kale gabdhaha balaaya baasoo waxaaba ku jirtabo nimanka ma aragtay oo naagaha badan iyo nimanka dhibka badan iyo gabdhaha waxa waaye wax ilaahay ku abuur waaye nimanka qaar waa fiiriyaan kan maba keelinba kan noocaas waa way ishaartaan naagooda oo lagu shamuumayo iyo nin allihii alla yahay oo laga kala cararayo markastoo lama dhihi karo 2022 gabdhuhu waxay ka helaanba ragga yani afka dheer ma idriso anaa mid kuu sheegaayo horta ilaahay qofba caqli iyo si uu ilaahay u dhaliyo mogtahay صح gabadha markay tahay dheergarad gabadha marka wax badan fahmaysa ama ee aad u dadka ma aragtay gadaal iskala hadlo oo fikiro oo ma aragtay wax markay arkaan gadaal kasii fiirinayo of course way jiraan gabdho oo nin hadal badnidiisa iyo qaabku u hadlaya itri badnidiisa yacni aftahan oo hadal badan in hadalkiisa iska qaataana laga yaabaa laakiin gabdhaha inta caadi sida caadiga ah wallahi gabdhaha oo ma aragtay mustaqbalka u baahan ama gabdhaha xiriirka nadiifka u baahan waxay fiiriyaan qofka inuu degan yahay yacni dabeecadaha ma aragtay biri ka maalin adi moogtahay shabeelnaagad horta nin imaba qarsoomaba ha ilaahay shabeelnaagad nagama dhigo ahi marka gabar soomaaliyeedna rumaal isku sheegaa mise been gabar wax walba way u sabray wax kasto gabdhaha soomaalidna sabay wax walba u dul qaataan caadi laakiin naag gabar soomaali ma qaadato inta badan waayaan صح ma u malaynayo yacni hadda gabar soomaaliyeed oo inta soo fariista dhehayso ani caadi ninkii waa fiican yahay saawaynaagu ila qabaa waanu ku faraxsanahay gabadh dhehayso ma jirto ما شاء الله تاس بين هاد ما shabeelnaagad niman fiicnaba waa weliga allaha waxaa fiican inaad hal xab ku ekaato haddii xiriir noqoto haddii guur noqoto marka that's why mar walba ilaahan ka magan galaa shabeelnaagad inaan noqdo haa ani ma ogi taas buuq leh waa umaleynaaba nolosha noocaasi ma aqaani wallahi marka ragga dhalinyarada maqlaysaan horta ma harsadaan nimanka oo naagaha badan ma harsadaan ya yacni hadda anaga gabdhaheena gabdhaha haddaan nahay waa dood badan nahay marka waana dagaal badan nahay صح marka nimanka oo hadda oo labada xaas qaba iyo ma ogi wallahi gabdho masaakiimiin oo ilaahay kusoo aadiyey kolba anaga kale ma ah nimanka oo shabeelnaagad ka ahaa horta shukaansi markii la joogo ada ninka ma ogaan kartid ma ogtahay صح ma waxaa ka hadlaya shukaansi maba ka hadlaayo yani shukaansi nolol maba u aqaani
waxa waa hay isbarasho waa baqtiyaan nasiib waa weysili kartiin waan isweyn kartiin mogtahay may guurka ka hadlaa ragow farxiyo sida idin sheegtay gabdhuhu number 1 waxay fiiriyaan ninka nadaafadiisa nin shiiraayo shaarka markuu wato ma fiicno absolute wallahi abuuru ma isku sheegay masbeen intaanoo kale rag diilin kulaba arkaysaa meeshaa bay diilin ku yeelanayaan qoyaan Soomaalida waxaa la mugti su'aal markii la weydiinayo maxaa adduunka ugu nacabta waxay dhahaan beenta iyo khayaanada ana adduunka qof af uraayo u nacba waa u jeedaan cambuulo iyo kalluun inta isku soo cuntaan oo caanid way ogyihiin wallahi fiiri dadku way ogyihiin horta rumaal sheega masbeen xumaan ma ogtahay dadka oo yacni oo hadda oo nadaafada afka ka liito kaleeto dadku ugu ayaan ka daran waa ani walaa qofka adduunka hadii xitaa xushmad weyn oo haay oo ixtiraam oo haay hadii afkiis qofkaas xitaa wax yar uu soo gaaro wijigeega attention-kay waa isbedelaa ani baa ma sheegay maxaa marka aadna ma nadaafada iimaanka barkeed waay